الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم مرة لبعض بان اسكسون نقرني ومالك لبعض ومؤتمر كيني جالية بمباسة مركز الفرقان وسود دياري بان مالك السلبات أنو مرينا إن شاء الله تعالى. وحن كسر وين إن هذا محاضرة الصدحات وي لقصوا بالله والشلي محاضرة الصدحات برنامج كده يرتمركي لقصاره وساكن أيضاً ويقاتين 10 كساكة بالشوين أنت محاضرات كود التيسة دحادوي محاضرات عنوان كده وحويان بر الوالدين. وأنا الشيء وحويان روح كستأو مسلمة وأبها يتابعنا يوي ونباها مدبضاً إنه وعلى عليه بر الوالدين يأهمية الإلهي يقيمه يهدي له لبعض هذا قفك كو إيمانيسا إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا فاضل كان وقع ضرقها يا شيخ محمد عبد الأمل بان الله فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعني وبر الوالدين، لبدا والد وبار الله النقضة. wuxuu tilmaamayaa sida cinwaanka mu'tamarku uu yahay shumuuliyada islaamka, diinta islaamku inay tahay diin aan nolosha bini aadamka waxba ka tegin, shay walbana meeshiisii dhigtay uu mudnaa. sidaan u tegi doonno waa diinul xuquuq, waa diin cid walba xaqiisa siisay. xuquuqda ay marka bixisay oo ugu weyn yahay allah tabaaraka wa tacaala xaqiisu, xuquuqdii aadamaha mid walba haddana xaqiisay siisay. xuquuqda waxaa ka mida ay qaybisay, kuma koobna qayb gooniya. waxay ka soo bilaabanaysaa ilaahay xaqiisa oo addoommada uu ku leeyahay, xaqullaahi cala alcibaad. kadibna addoommada mid kasta xuquuqda uu leeyahay, labada isqabta xuquuqda isku leeyihiin, labada isdhashay xuquuqda isku leeyihiin, dariska xaqiisa, saaxiibka xaqiisa, qaraabada iyo xigtada xaqeeda, wahaakada iyada dhan xuquuqdii bay kala habaysay. xadiidka abu umaama axmed iyo abu daawuud ibnu maajah soo saareen ayaa nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay: ina allaha acطaa kulla dii xaqin xaqah. alle tabaaraka wa tacaala cid kasta oo xaq leh xaqiisii ayuu siiyey. xadiidkii kale ee saxiix albukhaari iyo keyrkii ku yimid, abu dardaa radia allahu tacaala canhu ardaah, saxaabiga la yidhaahdo, wuxuu ahaan jiray nin iska cibaado badan, habeenkiina salaad u taagan, maalin oo dhanna sooman, ilaa heer xaaskiisii ay dayacantay oo xuquuqdii guriga, waxaan dhihi lahaa xuquuqdii gogosha ay weyday, isaguna cibaadou ku mashquulsan yahay. maalmaha ka mid a marka waxaa soo booqday ninay saaxiibbo ahaayeenoo salmaan alfarisi way saaxiibbo ahaayeen baa soo booqday. gurigii hadduu yimid, islaantii wuxuu u yimid iska basaasan oon uma muuqaninba haweenay ninkeedii joogo. lan haweenka markii raggoodu joogaan iyo marka kale waa isku qaab uma yaallaan, isu qaab uma labistaan, isu qaab isuma diyaariyaan. haweentanoo uun naa maxaa kugu dhacay see waxyi? waxay tidhi walaalka abu dardaa adduunyo dan kama leh. way u soo koobtayba, sarbeeb waay. isagii ayuu marka habeenkii intuu la baryey ayuu qisada xadiidku waa kii kolkuu kacaba seexa lahaa, mar dambe oo xilli dambe la gaadhay bay wada tukadeen.
سلمان مركا وحو يدي أبو الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه ورب الدرداء صلاة وصوم بعضو قاضي ربك حق بكولي مد اللواد ويا النفط هذونا حق بكولي هذا مد السدحات إهل كاجي غير كاجونا حق بكولي عيد والبحق يسسي حقوق ضه يسكو قسم عيد والبحق يسسي النبي صلى الله عليه وسلم أيو مركا أويمد قصة مركا الأحمر تكذب أيو سلمان النبي أويمد صلى الله عليه وسلم قصة دي بوشاجي مركز النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ورنتي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيدا سويه حقوق ذا يسكو قسنا أبو الدرداء حاسك حقي سسي نفط هذا حق سي ومر نصي هنصته انت صور الحق الله كوين حق ربي قدو مركز الدين تاني ودين الحقوق واحد إن حقوق الله يسكو قصه ما أقولا حقوق ذا أي دين تقيبسي حيالها أقوى وحكم إذا مركا حق إلهي اللي جاي ماده حقوق ذا مخلوق آدمها اللي يماده حق والد كأقوين حق اللي بذا كل شيء يكوي سيق علي يقو والدين وين أي أقو حق وين إني مسألة سيدة وحي نكو قرنينا الله تبارك وتعالى آيات بدن القرآن ككم ذا أيو حقي سوحو دبردقو كل مانيي حق اللي بدا والد وحالسكو قصين هاي وان هذا الكن ولين بسكو خلاف سنين حق وحاقوين كألي كهذا الكمتشرو وحد بي الله وحقوق ذاك الأقوين أقو مهمسا حق اللي بدا والد آيات كم معناها الرب كتل مامي وحا كم ذا قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ريب بني إسرائيل بلنتي لك قاضي بأهي طبعا كتابك التوراة إنجيل كتبتي هوري الله سودة شيء أيا بلن لك قاضي إني سن عابدين عدان الله أهي كاوا حقي الله لبدا والدنا إن إحسان السميان ساس الله دبر دقي آية دلوات سورة البقرة كترتاية سورة النساء يضن كتمت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللي عابدا عدك لنا عبادتي سهل وذا تشننا انت سوى حق الله وحال دبر دقي لبدا والدنا إحسان السمية آيات السدحات ومد رب الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا وحو أمري وحكمي ودردار مي إناد إساق كلي عابدان وحق الله انتاس لبدا والدنا إناد إحسان السميسان شاصل الله يسود بردقية آياتك لرب تبارك وتعالى وكيري قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كاليا أن إذن شيء أن كدوا الأخرية وحي إلهي إذن كحرمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله وحو إذن كحرمي عبادتي سعيد كالي حسينين هلا وداتشنين إلهي أدومدي سوحي سوق دارنا وحقي الله كاس كدبنا محل قدام بيسيي لبدا والدنا إحسان السمية آيات الشناد الله تبارك وتعالى وحو يري أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الضون كيو يقول شكري أنيقا لبدا والدنا كل شكري شكري عليه وحق كوبات حق وحى الله بيو دبي الله لبدا والدنا كل شكري marka quraanka markaynu fiirino waxaanu helaynaa xaq labada waalid wuxuu dabayaa la xaq rabbi tabaaraka wa taala
sababtu maxay tahay laana labada waalid jiritaanka ruuxa bay sabab u ahaayeen ruuxa ilaahay baa abuuray laakiin yaa sabab u noqday aabiyo hooyaa sabab u noqday aabiyo hooyo ka soo baxay hooyo caloosheedu ku koray intuusan adduunka imaanin marka kadibna markuu adduunka yimidna iyagaa barbaariyey inuu ruux lala hadlo noqdayba oo hadal loo jeediyaba inuu soo gaadhay bacda fadlillaahi waxaa sabab u ah labada waalid baa sabab u ah diintuna waxa weeye diinta islaamku waa diin abaalgudda waa diin abaal waay man astaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh ciddii wanaag idiin samaysa u abaalguda haddaad waxaad ugu abaalguddaan weydaanna u duceeya marka waa diin taqaana abaalka taqaana oo ciddii wax kuu gashay taqaana oo qadarisa waxyaabaha wanaagga laysu sameeyey kana ratibta markaasi waxa ay mudan tahay macnaha gaar ahaan rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu xaqaasi labada waalid sii adkeeyey markay labada waalid ay duqoobaan oy da' noqdaan oy agtaada ku gaboobaan oy tabar dhigaan oy culays noqdaan oo dabeecaddoodu isbeddesho oo marmarka qaarkood xataa ilmaha yarka xataa ka caqli liitaan xaaladdaa iyada ah ayaa si gooniya qur-aanku u sii taabta laanna waa xaalad culayskeeda leh laakiin rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala ima yablughanna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذه لبدا والد أكتادا ومدكود كوغبوبو وكوينادو أما لبدا باي أكتادا كوغبوبان وكوينادان هذا الحنها كلهم فلا تقل لهما أف كلمة أف ما أف وكلمة علص أف حتى الروح عادي لما يدهن لقما وضع أفتي صومالي لقما وضع لك كلمة أفنتو وحال لقما وضع ودارين إنا كحن تهي لبسانا يسو كلمة لقو عبدالروا حتى كلمة الماميسا إنا لبسانا يسو أما دارين قادي أما حقا كحن تهي كلمة نوعاسها كلهن يسن كام مقلين ولا تنهرهما هقول قولين يا هو حنشبين هقول قولين هعبسي قلين وقل لهما قولا كريما هذا الوناكسن والدبع السن كله هويو آبو كلمات احترام لي هو الدبع سن هو نحريس كجرتو كله لأن مرحلة دا إيضا وحبدا محمل كران روح مركو دقوبو دقوبو حتى هدو دبيعات في عنان شري دبيعات ديسي يسبدش وحير مركا محملي كرو مركا هقول قولين هذا الأذك كلهن هذا الكدبعي يا هذا الشيء دبع السنة وناكسن كله انت لقى ما هرينه هذا الكأو ناجي مركي الليلي يا هذانا وحال لقى دبر دقي رقم كان أوها جاج واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قرب كاغا oo dulaysan oo dabacsan u raarici halaga wada garabka u dhig yaa dhulka isu dhig muaamalada iyo dhaqanka aad kula dhaqmaysa han noqdeen dhaqan iyo muaamalo aad iyo aad ay uga muuqato tawaaduc iyo hoos isu dhigid iyo iyaga inaad kor u qaato dhaqankana hagaaj naxariis daraadeed aad u naxariisanaysa labadaada waalid inta lagama hadhina Allah wuxuu yiri ادعي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعتر هذا ربي أن حريصو سيدي أيو كوريين أنا قو ير يا هذي قو ير وعن عاني بيك الجرنين وان صحراء ديك هذا إسكاها تشنكرين والضب إعانة أنك الأقونين يا وأن مرض حين أقونين أيكو قبتين كو كوريين كو برباريين ilaa heerka soo gaadhay sidaas daraadeed allow abaal bay ugu leeyihiin
yaraantaydii say ii soo koriyeen rabbi ugu naxariiso u ducee alla u naxariiso sidaa dhaha buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala marka xaaladdaa markay gaadhaan oo duqoobaanna si gooniya looga sii dardaarmo qur-aanku uga dardaarmay nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka abu hurayra nabiga ka warinaya fii saxiixi muslim rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam raqima anfun uma raqima anfun uma raqima anfun yaa sanbaa carroobay sanbaa carrada ku dhacay maxaa laga wadaa ruux baa dulloobay waay 3 goor baa lagu celi ruux baa dulloobay yaa waay waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah yaa waay ruuxaas markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man adraka abawayhi cindahu alkibar aw axaduhumaa man adraka abawayhi cindahu alkibar aw kilaahumaa falam yadkhul iljanna waa ruux labadiisa waalid midkood agtiisa uu ku gaboobay ama labadooduba agtiisa ay ku gaboobeen oo aan janno gelin buu nebigu sal alla alay wasalam maxaa laga wadaa markay xilliga iyo marxalada da'da gaadhaan waa xilligii jannada laga shaqaysan lahaa janna halkaasay marka ka dhowdahay ruux jaaniskaa helay oo labadiisii waalidood da'a helay oo haddana jannada halkaa u soo gaadhay ee intaa u jirsatay ka faa'iidaysan waaye kaasi waa ruux khasaaray waaye xadiidkii kale kacb ibnu cujrana waa kii ahaa malakul jibriil baa nebiga u yimi sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi yaa ha fogaado naarta ha ku fogaado ruux labadiisii waalid agtiisa ay ku gaboobeen ama mid ka mida labadooda agtiisa uu ku gaboobay oo naar galay oo janno ka faa'iidaysan waaye kaa allaha fogeeyo buu yidhi jibriil waa habaaran yahay nebi maxamedna wuxuu yidhi aamiin allow aqbal aamiintu allow aqbal waa marka haddaad aragto ruux waalidku agtiisa ku gaboobeen oon baarri u ahayn oon u adeegaynin oon raallinimo ka raadinaynin oon u dabacsanayn waa habaaran yahay yaa habaaray malakul jibriil baa habaaray nebi maxamed baa aamiin yidhi habaar baa ku dhacay kaa marka marxalada waa marxalada la doonayo in mudnaanta khaaskaa la siiyo labada waalid markay gaboobaan oo tabar dhigaan laanna xaaladdaa iyada ah waa xaalad baahidoodu badan tahay saan horeyba u sheegnay adiga markaad marxaladaasoo kale joogtay ama aad kaba liidatayba wixii ay kuu qaban jireen waa inaad u qabato maxay kuu qaban jireen saxaraday kaa tiri jireen kaadiday kaa tiri jireen maryahay kuu nadiifin jireen yaa gogoshay kuu hagaajin jireen way ku qaadi jireen shalay meeshii ay kaa soo qaadeen bay maanta yaallaan intii ay shalay kuu qabteen u qabo intii shalay ay kuu qabteen u qabo macnahaas ayaa la tilmaamaya haddii marka aynu tilmaannay labada waalid xaqoodu inuu xaqa ilaahay daba yaallo oo tawxiidkii iyo xaqii rabbiba la daba dhigay mar kale waxaa la daba dhigay salaaddii baa la daba dhigay tawxiidka marka laga yimaado iyo shahaadataynka oo xaqa allah ah diinta tiirkeeda labaad soo salaadda ma aha haddana mar labaad salaaddii baa la daba dhigay xaqa labada waalid nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka cabdillaahi bni cumar waxaa la weydiiyey cabdillahi bni mascuud baan dhihi lahaa waxaa nabiga la weydiiyey sal alla alay wasalam ayu lcamali axabu ila allah nebi allow camal la sameeyo keebuu alla ugu jecel yahay markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam alsalaatu calaa waqtiha salaad wakhtigeeda lagu tukado ayaa ilaahay ugu jecel yahay camal la sameeyo waxaan idhi buu uhi uma ayun kee ku xiga kee soo raaca markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam uma biru lwaalidayn labada waalidoo baarri loo noqdo salaaddii baa lagu xijiyey soo maarit taasaa ilaahay ugu jecel yahay camal la sameeyo waxaan idhi buu uhi uma ayun camalka saddexeeya kee weeye kee ku sixiga nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam aljihaadu fii sabiili illaah jidka ilaahay oo lagu jihaado inaad naftaada iyo xoolahaagaba intaad khatar geliso goobaha jihaadka gasho furinta tagto naftaada iyo xoolahaagaba bixiso
waxa ilaahay ka jecel yahay inaad labadaada waalid baari u noqoto iyaga ka horeeyo baarinimada waalidka ayaa ka horeysa xadiidkaasi Bukhari iyo Muslim baa soo saaray nabigu sallallahu alayhi wasallam uu macnaha ku tilmaamayo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nimba wimi markaas wuxuu ku yiri inni khatabtu imra'atan fa abad an tankihani wa khatabaha ghayri fa ahabbat an tankihahu haweenay baan doonay sheeko guur baan dhaxmartay inaan guursadaan rabay waana jeclaaday way diiday buu nin kala doonay way ogolaatay buu marka aniga diiday kadib bay kii kala yeeshay faqirtu calayha faqataltuha buu waan masayrayo intaan xanaaqay baa mariyadii oo dhanba ka takhalusay buu si aniga diidi karta nin kalena waa ogolaan karta kow waaba ka takhalusay buu آخر مطر هوانتي ابن عباس فهل لي من توبة بول واحد توبة ما يقرن يسا بقول حير هذه هنا توبة كنا الرواية قول بو حق درجو دلي سوما قول مسلمات بو حق درجو دلي بلاش حد يديدي وسوق ما ديدي كرت ويكون ديدي كرت توبة برا بول عبد الله بن عباس وحقولي أمك حيا هو يدا من نوشة مركز أبحوري مايا من نورا مركز ابن عباس وحكويري تب إلى الله تبارك وتعالى وتقرب إليه ما استطعت إلهي أطوبت كان وحال وحاد كريكرتو عملنا سماء وإلهي كودا ويني ددال بان بكويري مركز نينكي كتغي أيا عطاء وأرضي عبد الله بن عباس ويدي وحكويري عبد الله يو ninkan maxaad u weydiisay hooyadaa ma nooshahay maxaad u tiri nin dhiig xaq darra galay iyo hooyadii nolosheeda maxaa kala galay waxa iska quseeyay ma u weydiisay markaas wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah 'azza wa jalla min birri al-walidah ma garanayo diinta Ilaahay ku garan maayo amal Ilaahay tabaaraka wa ta'ala loogu dhawaado oo ka qiimo badan inaad hooyada aad baari u noqoto marka wuxuu dhihi rabay inuu yiraahdo dhiig islaam baad gashay Soomaa Ilaahay acmaasha loogu dhawaado ee Ilaahay uu laga yaabo inay wuxuu ku taraan kuwa ugu waaweyn waa hooyada haday nooshahay baari u noqo saasuu rabay inuu aado markuu hooyadii ma noolana wixii amal kale Ilaahay ku dhaweynaya samee buu ku yiri حديث كان وحى صاري الإمام البخاري في الأدب المفرد وأنا حديث صحيح هو وفي رصادة مركة حق والدك توحيدك والوحيدك الصلاة دينا والله ضبط هدي حق والدك الله ضيعوه عاقل لقول نقضه أو لقول أمر ديده وعاصي لقول نقضه أيضا وحي كم التهي ذنوب تإله اللي قالوا هو وين بكمت على ضبط أيضا شركي على ضبط حديث أبو بكر البخاري ومسلم أي صارين النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وردن بيد الله قال قوة وين ما يدين شيئا صدق قرب النبي صلى الله عليه وسلم مركز واحد بلا يا رسول الله نو شيك رسولك إلهي واكوه مركز النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين إن إلهي يا أدومدي سوح لوداتشي وحقي إلهي لها إن الضوامد لا وداجي وشركي تمدق الله بعد الذنوب تقوينا ولا بدا والده عاقل ونقضه عاصي ونقضه عاصي الوالدين marka iyadana u fiirso xaqi dunuubtana dambiga labaad waxa laga dhigay labada waalid oo caaq lagu noqdo xaqi mabaadi'da ilaahay loogu dhawaadana tawxiidka waxa lagu xijiyay labada waalid oo baari loo noqdo meeshaas ay marka diinteenu dhigtay sidaas daraadeed xaqaasi culayska u leeyahay waxaad ku garanaysaan hatta hadii ilmaha iyo waalidku diinta isku khilaafaan oo waalidka uu hatta la qadar Allah gaal bayahayba xaqa waalidnimada waayib maayo hatta gaalnimo iska badaa gaal hadana raba adigu inaad gaalowdo adigu ka shaqeyn lahaa sidoo ku gaalaysiin lahaa hadana mac dalika xaqi waalidnimo waayib maayo
isagoo dadaal ugu jira inuu ku gaalaysiiyo haddana waa in xaqii waalidnimadiisa la ilaaliyo xagee baynu ka qaadanaynaa quraanka kariimkeenu ka qaadanaynaa Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa haday labada waalid kugula dadaalaan oo dadaalkooda dhan ay ku bixiyaan isku dhabar jabiyaan inaad diinta ka baxdood gaalowdo ha ka yeelin baa Allah tabaaraka wa ta'ala ha gaaloobin طيب maadaama ay gaalnimo bay igu yeedhayaan iyaga dhanba maalaad ku salax manturo maya inay gaala yihiin ama gaalnimo kugu yeedhaana mas'alo weeye xaqi waalidnimana waa mas'alo kale wasaaxibhuma fi dunya ma'rufan adduunka intay kula nool yihiin si wanaagsan kula saaxiib baa Ilaahay tabaaraka wa ta'ala adigu u hagaagsano u wanaagsano gaalnimadooda ha ka yeelin fisqigooda ha ka yeelin dunuubta ha ka ogolaanin laakiin xuquuqdoodii kala ilaali bari u noqo hadalka ka yeel yaani wax tar u adeeg ha ku adkaynin gaalaba ha ahaadeen gaalnimadooda iyagii la jirtaa ilaahooda kala xisaabtamay waqii xadiidkii asmaa bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay hooyadeed baa u timay iyadoo gaal ah madiina la jooga hooyadeed oo makka ka timid ayaa magaalada madiina timid hooyadeedna marka waa gaal asmaana waa abubakar baa dhalay waa saxaabiyad nabiga ila nooshay sallallahu alayhi wasallam hooyadeed oo waxoogaa hunguri wado oo bal gabadhaadii u tago waxoogaa aad ka soo heshid u timid ayaa u timid nabiga u tagtay sallallahu alayhi wasallam asmaa markaasay tii rasuulka ilaahayow hooyadayo mushrikado gaala ii timid rajana waa haysaa inaan wax taro maxaan sameeyaa وانا قال من الاريا النبي وحو صلى الله عليه وسلم عيتي هو يدي ما خريريا حسان ميان او سميا النبي وحو صلى الله عليه وسلم نعم هو يدا قال بها اهاته بارينما او سمي النبي صلى الله عليه وسلم عليه waxay sheegan culimada qaar kood inay ku soo degtay aayada ah la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ayadaas inay ku timid culimada qaar kood tilmaamaan bukhari iyo muslim ana xadiidka soo saaray diinteenu marka wax way waalidka xaqiisa halkaas ay dhigtay waa xaq aad loo cusleeyay la weyneeyay meel adag la gaarsiiyay ruuxa mustaqbalkiisa adduuniga aakhiraba ku xidhanba ilmaha aakhiradiisa iyo adduunkiisu waxay ku xidhan yihiin meesha uu waalidka ka istaago xadiidka abdullah ibn amr ibn aas ee tirmidhi soo saaray waa xadiis saxiix ay النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد إلهي إنه الرالي كان نقضه وحيكو حرنتا إنه والد كان رالي كان نقضه إلهي إنه كو عروضنا وحيكتلن إنه والد كان كو عروضه يعني والدكم مركي كو حناقان وكو كعريسيس وقردرات كعريسيس إلهي با كو عروني markii waalidkaagu raali ka noqdaana ilaahay baa raali ka noqonay meesha la gaarsiiyay halka way ridihii ilaahay baa ku xidhan cadadii ilaahayna waxay ku xidhantaa cadadooda xadiidkaas sidoo kale bukhari baa soo saaray fil adab al-mufrad isagoo mawquufa waa xadiis saxiix way waalidku marka waxa loo baahan yahay in aad looga taxadaro gaar ahaan waalidku inkastoo u badan tahay waalidku ilmihiisa xataa haduu qalloocdo inuu habaaro uma badna أو تلعسين أو دبعسين هذا واحد وقاتها هدي والدك كهباره هبار كاس صون نقول مايو أما حسودك دقو أما هيرضاه لكن هبار والد وكودعي نبينا صلى الله عليه وسلم وحوليه هي صدح بريو أما صدح الدعاء أما صدح هبار لما سعليه تصبوا إلهي وأقبله تبارك وتعالى وحكم ذا دعوة المظلوم روح اللي يقدر درنيا هباركيس روح الصعود السفر كرفات سن دعاديس إيوه لبدا والد هبارك أي المهوض هباران أديكوا هباران خلاص هذا هبار قبطة شكي ملي ساس درادي دوائنا تكور وريكتو والد كهباركيس
حديث كاس أبو داود وابن ماجه وبخاري في الأدب المفرد وأنا حديث حسنة وحات المامية وإذا مسألة المامية الذكور باو النبي وحنو شيء صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحكى نين ريب بني إسرائيل وجريج الذي جريج نين وحوسكاها راهب وودادة الدور كإسرائيل أنتي مالها باديها يمالها ضد كبحسن أنتي كردستان قرية أي كعبادستان ميليسا إسرائيل وأدون ورمى إسرائيل حب حيبوها ودادسك السوفية والدور قالوا إسكاها ماشي إسرائيل عبادستان نيكي نوعها أسوي ماشي إسرائيل عبادستان وما عادي إسرائيل أيان ناقبة أتمي فدعته مركزي ضلبتي بارني وماشي هكوتشريني قال شقي زي كتري يا ماشي سقى صباحه رجل نبي إسكر هذه قال شقي نيكي سقاها وديري نابلا يلا قولي ذي قاعد نافذ كل ويتكت مركي تكتي أياميد أريد شرعة وماشي أكتي سأري كل راحة شرعة ويسود ديبت كيف كشقيست أور بيقاد أور كمركي قادة بواحد شري أور كان موجودان وذات كان سو مع هذا كتير على بيتري المهر وذات كان إسكندر ماشي كل بعد السنة ننكاسا المهر ضلي سجع حمانته يقول سمي ضدك لو هو سنين أنت الله صايع عاي بودات كي ماشي لقد دمية أسقينا والله ساقط توك بالوي أنا قاعد ماشي نو توك كنيسة أنت ماشي أنا قبلها تكفر حميسة صومة على ساقط سووا شيء بيسم بالك أنا ورم حد عاي ورسوا حشرة حكور رئيسي أسقوا توكنا يو صلاة كشرة ماشي سيدور كهيدا كت عبادة سنة فهو يدي بأوتمت هو يدي مركي أوتمت أي ويردي ورجريجو ورجريج جريج صلاة بو كشرة إلهي بوتو كني مركاسو إسويدي قلبي يسوي ربي يو أجيبها أو أصلي هو يميان هائل هذا وهذا الكيد ميان مقلم الصلاة نسكوتها سجى إسويديني مركاسو وحسكو قنعي صلاة هذا إسكوت دور قور مركا أول واقدي ورجوري جو وهو هذا الكيدي وصلاة دي سكوتي أي مركا هبارتي وحي كتري اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات إلى هدلين إلى أتصطه ناقها حنحن وتشيدود نمكن ناقح حنب وتشيكي سوالي قد موسى أركم لبا وحا أغفلا ناقح حنو الزانية دا إنو وتشيكي دا أركابا لبا أغفلا تقضنا ما بأينا كتاك سنين وحوقا ير إن ير بيو ديبت إلهي وناقح حن وتشيكي إلى أتصطه هدلين بيت نينكي واتن إسلامتن أرديس أو تمنا وركالي شقيسو ناكا عداف نينكا الراعي يسو ديبتي أوربي سوقاتي وذات كمان قال سود تشي ولا كان ورمح داعي ورسي وحو جيران باشي لقد دمي سيغي لسوقه markii loo sheego loo yiri naagtan aad farax xumays uurkan aad iskale buu yiri ilmaha itus ilmihi waa markaasuu ilmihi la hadlay wuxuu ku yiri man abuka ya gulaam waa wiil yar marka war wiil yahu aabaha waa kuma buu ku yiri yaa ku dhalay ilmaha wali hadal gaadhin waay wali hadalkii ma gaadhin war yaa ku dhalay buu ku yiri aabaha waa kuma ilmihi yar uu hadlay wuxuu yiri arraaci أدي شركة يدلبوا ميت قاعد يقول هم قرع الرعابة يدلبوا إلهي واحد فرت سما جريج لكن خطر بو قلي هلس بو قلي معه هلس كلي يا هباركي هو يدي بهلس كلي سي مركي دم بوحي هذين نيورال له سبين باكو حدن وحكو حال مرينا هنا كنيسة دادية مش هتكون كنيسة وحن كاجر دسينا الذهب ضابي أهيد مركي هوري لكن الذهب بكاجر دسينا وردهب كي نما قاني روبضي دي يقول سو عليو وذات كي سيدي بوكو فكدي ما حد مالني زاهدي دهي لهي الهيو كاستو كنعي اي مقلي واي
naarta ku fogay haday dhihlay way uga turtay xogaa yar kumayna taagsan sidaas daraadeed waalidka habaarkiisu waa muhaqqaq nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay inay kamid tahay waxyaalaha cuquubadoodu ay daahdo dibna ay jirto soona degdegto waalidka habaarkiisa iyo wixii ka dhalan karay saas daraadeed waa inaad aad uga taxadarto waalidku wax kasto uu dalbado hadayna macsiyo ku jirin waa in loo sameeyo hadii ba la kari karo hadayna ilaahay lagu caasinaynin waa in laga yeelo waay طيب inta badan aadamuhu wuxuu ugu jecel yahay wuxuu haysto xaaskaaga iyo xoolahaaga hadii hooyada ku tirada ama aabaha ku yiraahdo islaantana jeceshahay siida faraha ka qad fur xaas waa la helaa laakiin hooyo lama helo sooma xaas waad heli tu kala guursan kartaa laakiin hooyo hadaad kala dhimataan ama aabba kala dhimataan خلاص bedel male iyadu sooma waa shay qaali ah raggu dadku wax kala waa huraan laakiin xaas iyo reer iyo meel adag bay ku yaalaan hadana maca dalika u fiirsan nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi xadiidka abdullah ibn umar abi buu ka warinay anila abdullah ibn umar baa laga warin wuxuu leeyahay كانت تحتي امرأة وكنت أحبها حسبا قبي أدنى ونجعل أبوي لكن أباهي عمر أيا نعب أبوي أباهي بكهنشري أنا بسوان شعل أبوي حاسكي مركزو أباهي يجري بيقول فر لكن سكفر طيب وين دي بيقول أبي الرال هو باري وعكلا أنسوني ما أدنى لكن كوريا قدومي كاي اللي ماي markaasa Umar wuxuu yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam odaygii baa u iimaanay uu sheegay nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam talliqha ibn Umar oo maqlaysa abahan furso kuma dhig furbu nabiga sallallahu alayhi wasallam jooji war baa yaal mar aba warkiisa yeel baa lagu yiri Abu Daawud baa wariyay qeyrkii xadiidku waa xadiis sugan وكذلك أبو الدرداء نبا ويمي أبو الدرداء الصحابي الجليل كاها نبا ويمي مركز وحكيري إن الامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها حاسبا ليه هو يدين وحي أمريسا فر حاسكا فر تيهور أبوها صوما تنوى هو يدين وحي ليه حاسك فر أم حسم يا أبو الدرداء ويديني markaasuu Abu Darda wuxuu ugu jawaabay warniyo rasuul kan kama qalbi sallallahu alayhi wasallam asagoo leh alwalidu awsatu abwaabil janna walidku jannada iridaheeda midka u dhaxeeya way uguna qiimaha badan fa in shi'ta fa adhi' dhalika albab aw ihfadhu bukud haday ku taalay iridaas jannada ee qiimaha badan ama ilaali ama dayac bukud warka u soo gaabiyay Soomaa war Abu Darda reerkii ma fura hooya ku dhagane war meeshan waxa taala janna taale ama dayac buu ku yiri ama ilaasho yaani ama hooyo warkeeda yeelo janna saa ku hel ama warka hooyo diido sida janna ku waaway saas ugu jawaab xadiidkaasi macnaha tilmaamayna Tirmidhi ibn Abi Shayba soo saaray waana xadiis وليه إمام الترمذي وحديث صحيح ساس ترادد ولا مرمان والدك وحكستها كوكو عسلادة مربع هذين معصية كتيرين هو أن الله المعصية اللي جالينين وإن أمركي صليه له طيب هدوك إلى هذا حولها قردن يكسو وريتشنا هذا حاسك بان هاي النظام هدوك إلى هذا كان حولها سو وريتش مع سمينه حولها وريتش ورميها اللي حولها كدحبح كوريج أيضا النبي كان فري صلوات ربي والسلام عليه حديث أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم دردار ما دور ودردار مي دردار ماذا وحا كمدها وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما
labadaada waalid warkooda yeelo ateec hadday ku amraan xataa inaad xoolahaagoo dhan uga dhex bax buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa xoolahaagoo dhan haddaad uga dhex baxdo hadday ku yidhahdaan soo wareeji xoolaha waad heli xamaalo oo xoolo kala shaqaysa kuwaa markaad shaqaysatid soo wareeji hadday ku dhahaan wareeji yaa meeshan hawl culus baa taala hadal laguma celin karayo wuxuu waa ka culus yahay xoolaha inaad bixisana macsiyo ma aha xoolahaaga inaad wareejiso macsiyo ma aha soo ma mar haddaynan macsiyo ahayn ay dalbadaan adiga haddaad iska sasabi karto ood si kale ku raaligelin karta ahlan wa sahlan laakiin hadday ku adkaystaan oo soo istaagaan wareeji xoolaha nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnahaasuu tilmaamayaa bukhaari baa soo saaray fi al-adab al-mufrad ibnu maajah xadiidkaa isaga ah xadiid kale jaabir bn cabdillaahi baa rasuulku sal lay waslam nin baa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah inna lii maalan wa waladan wa inna abii yuriidu an yajtaaxa maalii rasuulka ilaahay oo xoolana waan leeyahay carruurna waan leeyahay aabbahayna wuxuu rabaa xoolahoo dhan inuu iga qaato maxaan sameeyaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam anta wamaaluka liabiika adiga xoolahaaga iska baddaaya adiga iyo xoolahaagaba aabbaa idin leh yaa soo warcad maa xoolahaaga iska dhaafay adiga laftaaduba ku leeyahay buui marka adigiiba haddii lagu leeyahay ma xoolaha warkoodu yaallaan wareeji buu ku yidhi xoolaha war ma yaalleen ilahay baan idinku dhaariya waxaa u fiirsataan xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud ibnu maajah iyo kayrkii waana xadiis saxiix waxaad u fiirsataan meesha ay diinteennu waalidka dhigtay iyo siday u qiimaysay iyo siday u qadarisay iyo dhaqamadan kale meeshay dhigeen waalidka oo isu fiiriya isgarab dhiga yaa kullamaa waalidku sii duqoobo hooyadu da' noqoto sariirta ku urursato waa boqorad yaa wiilkeeda madaxda ee wasiirka ee madaxweynaha ee boqorka ah iyadaa boqorad u ah maamadaa sariirta saaran baa boqorad u ah amarkeeda waa inuu yeelo madaxweynaha hadday maanta ku tidhaahdo kursiga ka deg yaa muxuu samaynaa adeer kursiga ka deg iyadaa meesha boqorad ka ah hooyaa ku tidhi ka deg war ma yaallo haddiiba xoolihii iyo islaamihiiba la furahay ma kursi baa meesha yaal halkaasaa la geeyey marka iyadaa boqorad u ah aqoon-yahanka iyadaa boqorad u ah sheekha iyadaa boqorad u ah yaa kulli waxay dhashay iyo waxay sii dhaleen ayadaa waxay tahay tiirdhexaadka ay ku wareegaysanayaan iyadaasaa laga wada raadinayaa sidii loo raalligelin lahaa yaa iyadii waxaad isu fiirisaan marka habarta yurub joogta waddamadaas iyo dhaqamadaasi sheeganaya inay xuquuq bini aadan annagana nagu tuhmaaya inaan xuquuqda aadamaha ku ciyaarno duqaydii iyo waalidiintii say ula dhaqmeen bal u fiirsada marka horeba ilmaha iyo waalidka ilmaha ka xaq badan ilmihii waalidkii dhalay ee koriyey ee ku rafaaday waxaa la leeyahay ma taaban kartid ilmihii waxaa lagu dhiirigelinayaa haddii lagula hadlo ama lagu taabto telefoonka qaadano soo wac waxaa la barayaa marka wax la yidhaahdo waalidkaa kuma taaban karo kulama hadli karo waalidkii waaba baqayaaba ilmihii yaraa ee 4 jirka 5 jirka ahaa wuu waalidkii ka baqaya halkaasayba baqdintu ka bilaabanba kadibna waalidkii ilmihii maadaama caqliyada noocaasa lagu koriyey waxaa laga yaabaa waalidkii in xabsi loo geliyo ilmihiisa meel yar baa wax ka gaadheen wuu kufay nabar yar baa ku dhacay waalidkii ilmaha wuu edbiyay wax yar buu gaadhsiiyey xabsi baa la gelin waalidka ilmihiisii baa laga qaadani waxaad macno leedahay ma jiree beer baa tahay annaga wax noo soo saara markaannu midhaha kaa goosannana balaaya allah kugu rido waxaa tahay ma jiro waa duqowday soomaa carruurtaadii markay weynaadaanoo 18 jir gaadhaan isma taqaanaan ilmaha ugu baarisan ee baariga la dhaho munaasabadaha ciidaha iyo holidheeyada iyo
ilmaha hooyadii soo salaama ama u soo dira yani ubaxan maartay oo la isu dirtiro ama intuu yimaado soo salaami sanadkii hal mar bas waa baarikaas Soomaaliya way duqowday odaygii waa duqoobay caruur badan bay dhashay xagee la geynaya la carto iska shaqo tageen guriyaha waxa la geynaya dadka da'da waaweyn dadka da'da lagu xanaaneeyo umada kale gacanta u gali gurigiina yaa saaxiib kula ah yaa ugu helyeelay eeyba saaxiib ugu ah eeyba wehelu ah marmarka qaar kood maamadii eeyga wehelka looga dhigay shanta ilmood dhashay hal xabba kama hayso marka dambe eeygii baa cuni eeygii saaxiibkeeda ha baa marka qaar kood intuu gaajoodo cuni marmarka qaar kood ayada oo bakhtiday baa mar dambe lagu baraarugiyo oo qolkii ku bakhtiday tol male qaraaba male caruur male dulli way waa la iska fogeynaya nafta ilaahuna dhaafi baa la leeyahay reegalbeedka waalid saa u galay iyo diintan waalidka saa u ciisaysay bal isgarab dhiga idinku markaas waxay noogu sheekaynayaan xuquuq baan naqaanaa xuquuq bini aadan baan naqaanaa war hooyada sida u dhaama oo waalidka sida u dhaama hadaad xuquuq leedihiin oo caruurtan yar yarkeed waalidka ku diraysaan ka daaya waalid iyo ilmo la isma garab dhigo diinteennu marka waalidka halkaas ay dhigtay walaalayaal ilaahay baa tabaaraka wa tacaala diintan soo dejiyey xuquuqdana kala ratibay heer diinteennu waxay gaadhay jihaadka oo diinta in loo dagaalamo ah laga hormariyey waalidka in la raali geliyo xadiidka cabdillaahi ibn camr ibn caas radiyallahu ta'ala anhuma nimba nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu weydiistay inuu jihaadka u idmo markaas nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam hayyun walidaka labadii ku dhashay ma nool yihiin wuxuu yidhi ha fa fiihima fajahid bu nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama labadii ku dhashay ay nool yihiin labadooda ku jihaad iyaga ka shaqee iyaga baari u noqo iyaga ku dadaal iyaga ihsaan u samee jihaadka halka gali bu nabigu sallallahu alayhi wasallam bukhari muslim baa soo saaray lafdiga muslim wuxuu leeyahay nin baa nabiga soo qaabilay wuxuu ku yiri nabi allah waxaan beeca kugu la galaya iyo ballan inaan hijroodo jihaadana ajirna waan rabaayo ilaahay baan ajir ka raadinay nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam labadaadii waalid wax ma ka nool yihiin haa wuu labadii waa nool yihiin ajirna miyaad rabtaa ha ajirna waan rabaa nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam labadaada waalid ku noqo fa ahsin suhbatahuma labadaasi suxbadooda iyo la saaxiibidooda iyo dhaqankooda hagaajigu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaad ilaahay ajir ka rabto riwaayo kale waxay leedahay iyagoo ooyaan ka soo tagay buu labadii waalid oo tagitaankaygii jihaadkayga aan raali ka ahay nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ku laabo sideed uga oohisay uga qosli buu ku yiri soomadan ka oohinin waa inaad ka qosliso tayib labada waalid ayagoo xuquuqda wada leh bayna haddana isku xaq ahayn hooyada ka xaq weyn waxa tilmaamaya xadiidka Abu Hurayra nimba nabiga yimid sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yiri ya rasuulallah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati aw suhbati ya ugu xaq le dadka dhaqan wanaagayga ya ugu xaq le dhaqan wanaagsan iyo saaxiibnimo wanaagsan iyo baarinimo cid igu xaq le yaa waay dadka nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam hooyada way yaa ku xigu hooyada baa lagu yiri yaa ku xiga hooyada baa ku xiga yaa afareeya oo ku xiga aabaha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex goor bay ka horeysaa xadiidka bukhari muslim baa wariyay maxaa looga horeysay hooyada laana aabii hooyo isku dhib ma ah sooma markii ilmaha la korinayay ama la dhalayay isku dhib maynan marin odaygani habeen wuxuuga u raaxaysanayay iyo ilmuhu ka soo baxay sooma marka xigtana biil iyo masruuf iyo orod iyo hoygiisii iyo aradbixiisii hawlahaasuu galay hooyase maxaa ku dhacay hooyo maxaa ku dhacay hooyo way uur qaaday way walacday way ku xanuunsatay way ku rafaaday culayskiisii bay qaaday
way foolatay yaa mudday siday way foolatay jirkeedii baa la gogooyey wuu ka soo baxay inta kagama hadhine naaskay nuujisay kaayadii bay ka hagaajisay saxaradii bay ka hagaajisay habeenkii bay u soo jeeday way ku rabaaday ilaa uu hana qaaday oo uu cagihiisa ku socdo kaaftoomay bay gacanta ku haysay sooma marka aabba iyo hooyo isku xaq ma ilaahayna tabaaraka wa tacaala xuquuqda waa kala siiyay saas daraadeed baa hooyadu 3 goor ka xaq badan tahay aabbaha halkaas ay marka ku salaysan tahay dibka gaadhay baa ka badnaa sidaas weeyaan walaalayaal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam tusaalayaal cajab badan buu bixiyay sida waalidka baari loogu noqdo maalin dhaweyd baan gaalada waxaan la yaabay marmarka qaarkood waxaad kuba qosli bay buunbuuniyaan BBC-da maalin dhaweyd waxaan ka akhriyay page-keeda waxay soo qoreen nin la yiraahdo BBC-da Soomaaliga waxay soo qoreen nin adduunku la yaabay baarinimadiisa waan ciwaanka marka arkay baan galo fiirisay bal ninkan baarinimadiisa la yaabay haddaan akhriyo waxa meesha ku qoran waa nin Chinese hooyadii baa agtiisa ku duqowday maskaxdana way lumisay asagana waa professor oo jaamacad buu dhigaa asaga keligii baa hooyadii u adeega marka jaamacadii inuu dhigana waa laga rabaa hooyana gacan ku hayn bay u baahan tahay iyo wehel muxuu sameeyaa marka subaxdii markuu jaamacadda soo aadayo ayuu soo qaadaa baawurku ku soo qaadaa galaaska kursi dambe ayuu fadhiisiyaa arday ahaan bay u muuqani markuu lecture-kiisa iyo dhamaysto yaani wax weeye iyadoo meeshaas uu saa u qalafsanaato oo ardadii la yaaban yihiin oo moodahayaan tolo professoradani macallinkiina yay kormeeraysaa waa la yaaban yihiin markuu dhamaysto hawshiisa ayuu intuu qaado haddana baabuur ku qaadaya guriga ku celinaya markaas waxay yiraahdeen adduunka dhan baa la yaabay ninka baarinimadiisa shanu hada ilaahay baa idinku dhaariyay manin hooyadii ku dul shaqaysanaya baariya ya oo duqdi oo la aqli lahan intuu kursi ku fadhiisiyay ilaa uu muhaadaradiisa hawshiisa ka gudanahay meesha uu ay tacbaan la ahay maninkaas ilaahay adduunku ugu baarisan yahay marmarka qaarkood waxa laga iibinayaa waxyaalaha rakhiis oo la yaabayso qiimo lahayn ba laga iibinaya nabigeena u fiirsada salawaatu rabbi wasalaam aan tusaalu bixiyay saddexdii nin ee iyagoo socotada godka galay ee dhaguxu ku soo dhacay ee iridii godka uu fadhiisto bixi kari waay ayaa waxa kamid ahaa waxay ku tashadeen war dhagaxan iska mar riixi karno ilaa inaan ku cararno mooyee nin walba marka wixii uu sameeyo khayr iyo amal wanaagsan wixii uu xusuusto ilaahay ha ugu bariyo allah ugu tawassulo ilaahay aan barino nin iyaga kamid ah marka ilaahay wuxuu ku bariyay inuu waalidkii baari u ahaa nabiga warramay salawaatu rabbi wasalaam alayhi warka sheegay wuxuu leeyahay marka rabbiyow allow waxaan lahaan jiray laba waalid oo da'a oo agtayda ku gaboobay tayib xaasna waan lahaa caruur yar yarna waan lahaa xoolahan u raaci jiray xoor u raacaya markaan xoolaha raacon soo dheelmo xoolaha soo xareeyo oon caanaha soo liso labadayda waalid baan u hormarin jiray intaanan caruur waxba siinin oo adooma iyo dadkii kale waxba siinin waalidkan siin jiray maalin maalmaha kamida ayaa waxa ila fogaaday daaqii baa ila fogaaday xoolihii baa ila durkay geed raadi oo daaq raadi saan islaaba ila fogaadeen xilli dambaan soo xareeyay caanihii baan soo lisay labadii waalid oo waxaan u imid seexday oo iga hor seexday weelkiina dhilkiina caanihii buu ku sidaa caruurtii oo gaajaysanna meeshan ay qalqeeliyaan aabbacaana nasi meeshan ay qeeliyaan hoostayda ka dhawaaqayaan labada waalid hortood inaan caano cid siiyana naftu ay siin weeyay waan la dul istaagay rabbiyow inaan hurdada ka kiciyana naftu waa isiin weydoon toosiyo yaa hurday ku jiraan inaan hurdada ka kiciyana naftu waa isiin weyday inaan hortood cid kale caano siiyana naftu waa isiin weyday waan la dul istaagay marka
saan ula taagnaa habeenkii oo dhan xilli dambe markay hurdadoodii dhammaysteen ay soo kaceen markaasaan caanahoodii siiyey kadib baan carruurtii caana siiyey rabbiyow haddaan arrinta adiga dartaa u sameeyey ilaahu dhagaxan si naga dheh yaa war ninka habeenkii oo dhan dhiil caana labadiisa waalid la dul taagnaa inuu kiciyana diidano hurdada ka kiciyo carruurta inuu hortood caana siiyana u diidan war ma ninkaasaa baari ah mise jayniiska waalidkii ku dul shaqaysanayaa baari ah yaa marka baarinimada amthilada iyo tusaalayaasha nabigeenu bixiyay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay ka mid tahay aan soo gabagabaynay asbaabta ugu muhiimsan ee jannada lagu galay ay ka mid tahay waalidka inaad baari u noqoto wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waan seexday markaasaan waxaan arkay anigoo jannada ku jiraan is arkay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waan ku riyooday way fa sami'tu sawta qari'in waxaan maqlay nin wax akhrinayo quraan akhrinayo sawtkiisaan jannada ka maqlay buu markaasaan idhi buu war yuu ahaa ninkani jannada ninkan quraanka akhrinayo keeway markaasaa waxaa la yidhi buu xaarithatu ibn nu'maan ninkii la dhihi jiray xaarithatu ibn nu'maan ninkii way ninka jannada ku jiray quraanka akhrinayo rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kadalika albirru sidaasuu sameeyaa baarinimadu waalidka loo baarin noqdo sidaasoo kale yeesha wa kaana abarra annaasi biummihi hooyadii dadka ugu baarisan buu ahaan jiray ninkaas xaarith ibnu nucmaan nebigu marka wuxuu yidhi halkaa waxa keeyoo jannada geliyey waa baarinimadii hooyadii uu baari u ahaa buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib haddii labada waalid ay geeriyoodaan kadib intay nool yihiin garannay ixsaan loo sameeyo waxay rabaan la sameeyo lagu hadal celinin yaa hadalkooda la maqlo la ateeco loo adeego ayib hadal qallafsan aan lagu dhihin waxaaga la siiyo raalinimadooda la raadiyo garannay ayib way dhinteen markay dhinteen kadib baarinimadii ma go'aysaa may waalidka markuu dhinto xataa kadib baarinimuu kaa rabaa see baari loogu noqdaa waxaa loogu noqdaa baarinimo loogu noqdaa waalidka dadkii ay yaqaaneen ee saaxiibadii ah ama qaraabadiisii xidhiidhi wanaag u samee aabbahay bay saaxiib ahaan jireen nabigeenna sal alla alay wasalam waalid iskaba dhaafe xaaskiisii khadiija nabigu jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu samayn jiray khadiija mar horay dhimatay markuu xoolo qasho khadiijo saaxiibadeed waxa looga geeyey buu nabigu dhihi jiray sal alla alay wasalam khadiijo saaxiibadeed waalid maxaad moodaa marka cabdullaahi ibnu diiraan taabiciga la yidhaahdo ayaa wuxuu ka warinaya cabdullaahi ibnu cumar radia allahu tacaala canhuma nin reebaadiye baa u yimid buuri asagoo jid haya cabdullaahi ibnu cumar waa saxaabi haya waxaa ka hor yimid nin reebaadiye ah fasallama calayhi cabdullaahi ibnu cumar baa marka salaamay assalaamu calaykum waa nin reebaadiye ah markuu salaamay kadib dameer uu watay cabdullaahi intuu uga degay buu saaray warbal dameerkan fuul buu cimaamada cabdullaahi madaxa ugu duubnay intuu soo furay ayuu ninkii reebaadiyaha ku wareejiyey dameerkii iyo cimaamadiiba waa wada siiyey cabdullaahi ibnu diiraar oo ardaygiisii oo la socday baa wuxuu ku yidhi aslaxaka allaah innahum alacraab wa innahum yardawna bilyasiir war ibnu cumar allah ku hagaajiyee dadkan aad wax siinaysa ninkan waa reebaadiyena wax yar baaba ku filanba in yar haddaad siin lahayd xataa waa iska qanci lahaa maxay tahay dameerkii baad siisay cimaamaddii baad ugu dartay maxay tahay waxaan wax yar baaba ku filaan lahay markaasaa cabdullaahi wuxuu yidhi inna abaa haada kaana wuddan licumar ibni khataab kan aabbihii ayaa aabbahay cumar yay saaxiibba ahayoon isjeclaan jireen nebi maxamed baanan ka maqlay buu yidhi sal alla alay waslam isagoo leh inna abarra albirri silatu lwaalidi ahla wuddi abiihi baarinimada midda ugu baarisan waxa weeye inuu ruuxu xidhiidhiyo dadkii aabbihii jeclaa marka aabbahay cumar baa jeclaan jiray buuri aabbihii aabbahay baa saaxiibba ah isjeclaa halkaasuu marka ka dugsanaya soo maaret aabbihii buu baarinimo ugu samaynayaa
wiilkan duqu dhalay inuu muxuu ahaayey waxaasi marka dadkii aabba ay saaxiibo ahayn hooyo ay saaxiibo ahaayeen inaad ixsaan u samayso waxaa ka mid ah inaad u ducayso labada waalid oo waladin saalixin yadcuu lah markay dhinteen kadib inaad u ducayso baarinimaday ka mid tahay odan halmaamin waxaa ka mid ah labada waalid inaad wax u sadaqayso cabdillaahi ibn cabbaas xadiidku warinaya nin baa nabiga wuxuu ku rasuulka ilaahay hooyaday way dhimatay waxna ma dardaarmin ma anfacaya inaan wax ka sadaqeeyo markay dhimatay kadib haabuu nabigu sallallahu alayhi wasallam hooyadaa ka sadaqee ceel u qod masaajid wax ugu dar sadaqa u bixi waxay ka mid tahay markay dhinteen kadib baarinimada loo samayn karayo waxaa ka mid ah inaad ka soonto haddii soon lagu lahaa waxaa ka mid ah inaad ka xajido ka cumrayso xadiidka burayda tilmaamaya wuxuu leeyahay anigoo nabiga ag fadhiya sallallahu alayhi wasallam ayaa haweeney u timid waxay ku tiri rasuulka ilaahay oo innii tasaddaqtu calaa ummii bijaariya wa innaha maatat hooyaday waxaan ku sadaqaystay addoon baan siiyey hooyadayna waa dhimatay addoontii dib ma u dhaxli karaa nabigu wuxuu ku yidhi wajaba ajruki waraddaha calayki almiiraas ajirkii hooyadaa inaad ku sadaqaysatay horta waad heshay mar labaadna addoontii aad baxsatay dhaxal baa kugu soo celiyey waad dhaxli kartaa su'aal kale weydiiso waxaad tidhi yaa rasuula allah innahu kaana calayha sawmu shahrin afa asuumu canha bil soon aa lagu lahaa hooyaday ma ka soomaa nabigu wuxuu yidhi ka soon suumii canha haddana su'aal kale weydiisay waxay ku tidhi innaha lam taxujja qattu weligeed maysan xajiyin afa xujju canha ma ka xajiya rasuulka ilaahayow xujii canha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka xaji hooyada soo ma artaan marka soonkii lagu lahaa inaad ka xajido inaad ka cumrayso inaad ka sadaqayso wahaakada waxaan ku soo gabagabaynaynaa labada waalid xaqooda lama gudi karo yaa ilmuhu waalidka xaqiisa ma si kasta hadduu u dadaalo xaqa waalidka ma gudi kartid yaa waxaa tilmaamaya xadiidka abu burda wuxuu yidhi aabbahay abu muusa alashcari baan maqlay nin baa u yimid wuxuu yidhi abu burda haa waxaan joogay buuhi cabdullaahi bni cumar oo nin u yimid ninku waa reer yamaneed kacbaduu dawaafaya hooyadiina dhabarku ku wadaa hooyadii iyuu kacbada la dawaafaya tunkiisay saaran tahay halkanuu ku wadaa kacbadana waa dawaafinaya markaasuu wuxuu leeyahay gabay buu tirinayaa tixyar wuxuu leeyahay innii laha baciiruha almudallalu in udcirat rikaabuha lam udcari yaa waxaan ahay buu leeyahay gaadiidkeedii laylyanaa yaa geela iyo rarka saaran haddii la argaxiyo marmarka qaarkood uu boodo anugu la boodi maayo taasuu leeyahay yacni waalidka ratiga saaran ama faraska saaran soo marmarka qaarkood intuu boodo ma dhibaatoodo wuxuu leeyahay anugu marna la boodi maayo yaa waana laylyana saasuu ku gabyaya markaasaa wuxuu yidhi ibnu cumarow su'aaluu weydiiye wuxuu ku yidhi ibnu cumarow aturaanii jazaytuhaa duqdan aan ratiga laylyan u ah tunka aan ku sidan kacbada dawaafinayo ma kula tahay abaalkeedii inaan guday abaalkeedii ma guday buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi laa walaa bizafratin waaxida iska dhaaf inaad guddee hal mar oy naxday oy neefi ka soo boodday naxdintay naxday halkaa mar xataa ma gudi kartid buu ku yidhi yaa maanta haddaad tunka ku sido hal mar oo ay kaa naxday ama ay naxday oo ay neef tuurtay halkaa mar xataa xaqeeda ma gudi kartid buu ku yidhi marka waxa weeye waxoogaa yar baad samaysay waa yara dadaashay markaasaa shaydaan wuxuu kaa dhaadhiciyey wallaahi waxa weeye wixii lagugu lahaa waad iska bixisay bilaash baa lagu daba socdaa ma gudi kartid waa inaad daba joogto marka gabagabadiisu wax weeyaan walaalayaal waalidka ha laga dadaalo oo baarinimo ha loo sameeyo oo ixsaan ha loo sameeyo oo janno ha laga kasbado oo diinteennu say u qadarisay alxamdulilah haddaan nahay mujtamaca soomaaliga ah aad baa looga dadaalaa waalidiinta laakiin waa mudan tahay runtii mar walba in la isku baraarujiyo waalidiinta khaasatan luqadda adag waa in laga ilaaliyo qiso cajiiba ayaa waxaa keenay ninka la yidhaahdo lalakaayi alimaam lalakaayi kitaabkiisa sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna waljamaca buu qiso cajiiba ku keenay
nin la yiraahdo al-Awwam ibn Hawshab ayaa wuxuu leeyahay xaafadan mar soo degay buu xaafada aan soo degay socod waa marka xaafadu soo degay xaafada agteeda ama dhinaceeda waxa ku yaala buu qubuur baa ku taal qubuurta iyada markii casarkii la gaaro qabri kamida ayaa intuu kala dilaaco ayaa waxa ka soo baxaya madax dameer ayaa qabriga ka soo baxaya buu casar kasta markii la gaaro ayuu qabrigu kala dilaacaya madax dameer baa fur ka soo dhahay xagga dambana bini aadam buu ka yahay madaxuna waa madax dameer wax noocaas ka soo baxaya saddex goor buu marka sida dameerka u ciyaaya waa intuu qayliyo buu qabriga ku noqonay qabrigii baa isdaboolay markasta baad casar marka la gaaro waa saas islaam duqo habar ah ayaa marka qabriga meesha agteeda bay waxay ku soo haysaa buu xarig bay soo haysaa xarig timamiya mise suuf bay soo haysaa haweeney kale oo meesha joogta waxay ugu tiri tara tilka al-ajuuz habarta ma aragtaa buu waxay ku tiri war habarta ma aragtaa markaas waxaan ku yiri ma laha maxay tahay arrinkeedu shaanigeedu muxuu yahay xalkeedu muxuu yahay markaas waxay tiri buu dameerkan qabriga ka soo baxaya hooyadii way habarta halka fadhidaay qabrigan ruuxa ku jira hooyadii way markaas waxaan yiri maxay xalkeedu muxuu ah bal iga waran ma qissatu ma kana qissatu ruuxan meesha ku jira dameer ahaan u soo baxay qabriga ka soo baxay muxuu ah bal qissadiisa iga waran waxay tiri kana yashrabu al-khamra nimbu aha khamradu cabbi jiray markuu khamrada aadayo ayay hooyadii waxay ku dhigi jirtay yaa bunayya taqillah wiilkayga oo ilaahay ka baq hooyo ilaahay ka baq khamrada iska daa xumaanta iska daa markaas wuxuu dhigi ila mata tashrabu hada al-khamr hooyo ila intee baad khamrada wadaysaa ma iska cabiyun adiga maadka waxan iska days ayay ku dhigi jirtay markaas wuxuu ku dhigi jiray oo ugu jawaabi jiray inma anti tanhaqina kama yanhaqu al-himar habarya sida dameerka aad u ciyaysaa ku dhigi jiray sidii dameerka qaaq iska leedahay hooyadii buu ku leeyahay lawaanid khamraysan iska khamriya cabe Sooma saasu hooyadii ku dhigi jiray iyaduna wax dhigi jiray hooyo ilaahay ka baqo khamrada iska daa ninkii sida ahaa casarka kadib uu dhintay baad al-asr baa la duugay mar alla markii waqtigii la duugo baad al-asr uu joogo maalin kasta madaxiisii oo dameer ah iyo jidhka intiisii kala bini aadan ah baa qabrigii ka soo baxaya saddex goor buu sida dameerka u ciyaaya markaas wadana qabriga ku noqonaya war xagee laga raacay soo hooyadii kuma dhihin sida dameerka aad u ciyaysaa ilaahay wuxuu qadaray inuu sida dameerka u ciyo aaya min aayati illaahi wa ilaahay adoomadiisa waxbuu tusaaleeyaa waxbuu tusaa sidaas daraadeed waalidku maqaam adag buu joogaa meel adag buu joogaa diinteenu halkaas geysay ku filan inuu ilaahay xaqiisa inuu daba dhigay ajirka laga helayna ajirka salaada daba dhigay intaas waa ku filan dambi la galana inuu shirki ugu weynaysiiyay xuquuqul waalideynkana ku xijiyay intaas waa ku filan tahay waa diin weyn marka diin cadiima diin qiimo leh diin xuquuqda ilaalisay diin cid walba qadarisay wuxuu lahaana siisay way diinteena والدك هل قد دالو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل. رنتي موضوع آديات هم معان ويان لقد دالين لقد درقينين وانا موضوع ويان قد قالنا انا وضع خسايوي ضمان محانا هاي اولاد بان او ضد بان داري والد بان لنا isla markaana in badan inaga naga midana waalidiin way marka labadiiba dhinac waalid baad tahay dhinacna walad baad su'aalaha way isku dhaw yihiin waqtigana waa muhaadarada kale baad al-maghrib dadka xooga inay soo yar maartay nastaan ama break la yar qaata fiican marka dhowr su'aalood baanu halkan maana soo qadimaynaa sheekh su'aalaha mawduuca calaaqada la way sheekh gabadh qof halkan wuxuu leeyahay qof dumar ah su'aash soo qorto waxay leedahay
waxaan ahay hooyo carruur yar yar haysta hooyadayna uma tegi karo mayna sheegin duruufaha ay ugu tegi kari weyday iyo wixii la midka ayadna ima imanayso hadday sidaa ku dhimato maxaan ahay macaasi baan ahay habaarkeeda igu dhici iyo wixii la midka bal yatafadal baarak allah fiik bismillaahir rahmaanir rahiim waalidka waxa laazima ama kala maqnaada ama wada jooge inuu raali yahay oo uusan waxba ka qabin maqnaantaada inta haddii la helo inta la doonayo waa inta haddii uu dayacan yahay oo cid kaloo haysa aan la haynin tegitaankaagu laazim buu markaa noqonayaa laakiin haddii waalidkii cid kala hayso ama isagiiba awood leeyahay oo uusan u baahnayn cid haysa maqnaanta aad ka maqan tahayna uu raali ka yahay waxba ka qabin wax dhiba ma laha ama adugu reer lahow ama halahaanin muhiimadda waxa weeyaan waalidkii inuu raali yahay inuu sidaas ku qanacsan yahay inuusan wax dhiba ka qabin haddii ay timaado waalidku inuu ku baahan yahay ilmana marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo ilmihii iyo xuquuqdii ninka iyo waalidkii xaqiisii meesha marka waxa iimaanaysa xaaladaha noocaas oo kale in loo baahan yahay ragga dumarka qabaayay in ay fahmaan xaaladda noocaas oo kale markay xaaska ku timaado oo waalidkeed dhiban yahay ayadana u baahan yahay in uu fududeeyo si waalidkiina loo xanaanayn lahaa ducana looga heli lahaa ilaan ducadu xaaskiisii iyo gurigiisii iyo carruurtiisii bay saamaynaysaa isaga laftiisay ku soo noqonaysa inuusan noqonin macangago uusan dhihinuun aniga halkaa ii fadhi ma dhaqaaqi kartid warta ma dhaqaaqi kartid ma ahee aduguba waalidkaa hadduu xaaladaasoo kale la soo daristo maxaad samayn lahayd sida aad waalidka uga daqan lahayd bay iyaduna waalidkaad uga danqanaysaa marka waxay u baahan tahay duruufaha noocaas oo kale inay raggu qadariyaan oo waalidkii la isla xanaaneeyo oo gabadha loo fududeeyo ama waalidka in la keeno ama waalidkii loo tago waa hadduusan ka maarmaynin ilmaha inuu u tago hadduu ka maarmi karana markaasi dhib ma laha raallina sidaa ku yahay wallahu aclam su-aasha aani labaad wuxuu leeyahay qofkan waxaan ahaa qof labadiisii waalid caasi ku ah intay dhinteen kadib baan waxaan dareemay cuqubadii maxaa ila gudboon hadda cuqubadii haddii kugu dhacday waatina hadda ka warramaynay nin Soomaaliya ii yimid muddo ka soo wareegtay wuxuu igu yidhi niyow nin af xun baan ahaan jiray oo waalidkay ku afceliya dhallinyaraan ahaa buuhi waagaas ilaahay wuxuu qadaray buu yidhi afkaygii inuu uray buu yidhi afkii baa ii uray buu yidhi su-aashii weydiinaya waxay tahay masaajidda markaan imaadoon dadka la tukanayo dadkii sidii ruux basal cunay oo kale agtayda ma istaagi karaan si kasta haddaa waxyaalaha udgiya xataa isticmaalo afkii waa soo uraya sheekhu maxaan sameeya jamaacaadkii ma isaga tagaa asagu markaa wuxuu rumaysan yahay waalidkuu ku afcelin jiray ku af adkaabaa laga soo gaadhay oo afkani la uray marka waa amthilada waalidka cuqubadiisu ma daahdo sida nabiga hore u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxay markaa u baahan tahay inaad ilaahay u toobad keento dambi dhaaf weydiisato marka labaadna waalidkaan nool hadduu nool yahay inaad cafi weydiisato hadday dhinteenna sidaan hadda tilmaannay inaad u dadaasho u sadaqayso xajido cumrayso sadaqa u bixiso u ducayso wahaakada yani dadkii ehelkii dadka isjeclaan jireen xidhiidhiso waalid dhintay sidii baari loogu noqon lahaa tan soo tilmaannay weeye taasaa lagaaga baahan yahay hadday nool yihiinna waa inaad lugaha qabsato ood gundaha qabsato oo ay ku cafiyaan oo ku saamaxaan nacam su-aasha kale xigta wuxuu leeyahay waa qof dumaran rajaynaya tahay zawjkaygu waa nin aad u mucaamalo xun labadayda waalid weliba khaasatan habdhaqankooda wuxuuna amrahayaan ayaga labadii waalid inaan zawjkan iskaga fogaado oon maaragtay aan kala tagno qofkii dumarka maxay arrinkaa samaynaysaa waalidka ma amraya waalidku amraya meesha waxaa imaanaysa
مسألة اللي يدهدو حاسكا حقا لنك هذا هي حق والدك كيبا وين هذا إسقبتان ويسوافقي وياه وأي نقطة قصب إن متكود لإلاليو كيبا منان تالي أحاديث النبي وحلقة قادنا يا حقا ننك أيا منان تالي markay labada xaq isku dhacaan wasaalix kala la fiirinaya sidaas daraadeed waa inay isku daydo gurigeedii iyo ninkeeda iyo ilmaheeda inaysan dumin xuquuqdii ninkana gudato isla markaana waalidiintii inta tabarteeda ah inay baari u noqoto inay iswaafajiso waa inay isku daydo ninkana si horan tilmaanay waa nooc runtii aan fiicnayn oo aad u xun in aad gaarsiiso xaaskaaga heer ay laba khiyaar ay hor yimaadaan ma waalidkaaga aad u xilataa mise ninkaaga aad u xilataa adaa loo baahan yahay adaa odayka reerki saan tilmaanayba ducada xaaskaagu ay hesho gurigaaga ku barakoobay waalidkan laga ducaysanayo xaaskii iyo gurigii buu saameyn ilmihii ay dhashay bay ducadu gaadhaysaa wax adigiiba dani kuugu jirto inaad gabadha ku cadaadiso sax maaha bal waalidiinta xaaska waxa loo baahan yahay inaad uga danqato sidaad waalidka uga danqanayso kale oo aad noqoto ruuxis iyo dareen leh naam jazakallahu khayr su'aasha kale ku soo xigta wuxuu leeyahay qofkan nabigeena kaleey salaatu wassalaam waalidkii ma u shafaac qaadaya qiyaamada ama hooyadii ama labadii waalid ba ma u shafaac qaadaya qiyaamada في صحيح مسلم وحكويا له كتابك اللباد أحاديثة وقوين بخاري باكوة مسلم باللباد صحيح مسلم كوحكويا له النبي قال صلوات ربي وسلام عليه أسوى الصعوطاء ومكة يا مدينة لحظة تشيت كاهية قبرك هو يدي ماشى سكويا له تشيت كي وهي صحابة الله السعودي واللحظة النبي صلى الله عليه وسلم قبرك يبو كل لحظة qabrigi markuu ku leexday oo dul tagay nabigu waa ooyay sallallahu alayhi wasallam waa hooyadii qabrigeeda waa ooyay nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ooyay kadibna saxaabadii la socotayna waa ka oohiyay way la ooyeen markay arkeen nabigu ooyay sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rabbigay baa waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaartoon booqdo waa ii ogolaaday buu yiri waxaan weydiistay inaan u duceeyo inuu ilaahay u dambi dhaafo waa ii diiday buu halka waxa ku soo degtay aayada quraanka rabbi leeyahay ma kana lin nabiyyi walladina aamanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum أصحاب الجحيم نبي يضد مؤمنين منا وما بنانا إن أي ضد قالاء وقال لما قد انتي إن إلهي دم بداف أوي ديان أو إلهي أدم بداف دهان نبينا وما بنانا عدك لجور كيس إسكبدا مركي لو دي ذا نبي هو يدي إنه إلهي أدم بداف يراهدو مركز النبي أوي صلوات ربي وسلام عليه نحذين يعني تنقشوا هو يدي وتنقنيه صلوات ربي وسلام عليه مركز ربي وحكوا يدي مايا أنا واحد شرا وحياله مسائل واحد شرت عن إيه قليل باشرت إيه ما قش روح المرضو قال لي ما كل أنت يا إله من النبي ضلوا نبي مؤابا وهذا نبي هو يدي مو نقضه مربع هذو قال لي ما كل أنت خلاص نبي إن كلينا معه صلوات ربي وسلام عليه نبي إبراهيم خليل الرحمن أنبياء النبي محمد بقى أوفى ببضن نبي إبراهيم بقى كحيقة نبي إبراهيم أبيه آزر يا سو قرآنكم الشيء إنه قال لي بقول أنت نبي إبراهيم وحى لقيل أبها إلهي الدمداف مويتين كرت سمعت بلنقاد هراء السيينة قرآنك وكهالله ما ننتقي يا مدنا وحال كيني دونا أبيه أو دروا أنت اللو إكيسي ماشي هي مية أنت بضع حي من شهر قبتان نار تلقوا توريا والعياذ بالله
ونبي الله إبراهيم آبه لأن قال لي مقدنت آزر قرآن كاشي نبي نوح ويلكيسي آوي يا سورة الهود لقى مشاكل إني بيه قادين وقال لي مقدنت والنبي نوح مركو ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ربي ويل كيجو أهل كيجيبو كم يدها بلن قادنا واد سيسي بلن تادنا حقوي سوي وجرا ربي مركو ويدي وحلقوا يريد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بالي ويل كوادش لكن أهل كاجي بلن قادك أنكوسي كم يدما maxay leewaaneen dhaqan xun la yimid waxa gaalnimo la yimid raali oo balay Soomaali marka waxa weeye nabi baa dhalay iyo nabi bay isdaleen iyo nabi baa maartay aabba uu ahaa iyo nabi baa hooyo uu ahayd ilaahay warka ma yaqaan warkaasi wuxuu socon karaa markii mabda iimaanka la isugu yimaado wada rumeeyaan Soomaali markay wada rumeeyaan oo iimaan la helo ama gaalnimo hadii lagu dhinto bas waay نبي لوط يا نبي نوح حاسس كودي سو قرآن كمان رمي يا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح يا وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين لما النبي باقبي فخانتوهما قالي نقدين فلم يغني عنهما من الله شيء وحويروا رواية نبي نوح يا نبي لوط لو ضودي حاس وحوا رواية نار كما بدبادين كرام وقيل ادخل النار مع الداخلين نار تقال لي لودي حاس بالقرآن محو نو شيغي ابي نبي دلي او العذابي ويل نبي دلي او العذابي حاسس نبي قبين او العذابي سوما hadii marka nabigeenu inoo sheego hooyadii in la yiri ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid ma hayna nidhaahno ma nabi maxamed يا ورما نبي محمد الله أكتيسا وكوين لكن واحد شرطة وحيالا أن اسبدلين باكري الله أكتيسا يلا الله ابن مرنا أنقلي كريم لقنا الشفاعي كريم لقنا الشفاعي كريم مسألة هذا قال لي ما تمادو يشرك اللي قلت أنت إيمان الآن ما قليسه مركز إله أكتيس تبارك وتعالى وأساسه إله يحكم أيوه استثنانا ماله نار تروح قلي وأنا كواريا والله أعلم سؤال شو حليه هاي قصة جريج هو يدي مركي يقول واقضي صلاة بوكوشري صوما كدي مركو صلاة جوده هدي هو يدي لحد لوايه بهبارت مركو صلاة أنه كوشرنا هدي ما مضوا نور واقضه ما هي بانتاهم سؤال شو أساس جوابت وحوي الصلاة والله بقى صلاة هدي واجب تهاي مايا صلاة هدي واجب تهاي لحد لميسيد الصلاة ضميسان صلاة aad ku jirto haday sunno tahay oo salaad sunna hooyo ku yeedho waa inaad heed tiraahdo salaadana ka baxdo ma la faham jurayj marka wuxuu tukanayay salaad sunna abu tukanayay saazaradeed ba al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah sahih muslimka abwaabtu u sameeyay markuu baabaynay macnahaas uu baabayay marka wax weeyaan salaada sunnada waxaa ka mudan waalidka daacadiisa laana daacada waalidku waa waajib salaada aad ku jirtana waa sunno iyo waajibna waajib ah horeeyo wallahu a'lam su'aasha ugu dambaysa qofka wuxuu leeyahay waan xanuunsanahay waxaan rabaa in la duceeyo hooyada dhimatana in loo duceeyo intaasan ku soo gabagabeynayna insha Allah tabaaraka wa taala barakallahu fiikum Allah caafiyo amiin isaga iyo inta jiran baa Allah caafiyo isaga inta jiran baa Allah caafiyo caafimaad degdeg Allah siiyo diinta duqayda iyo inta dhibanba dhibaatada Allah ka qaado inta dhimatayna Allah u naxariisto ilaahayna tabaaraka wa taala inuu anfaco waxaan maqalay hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi